kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhabka hadal waxaynu ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya u dhaxeeya ciidamada federaalka iyo kuwa maamulka Tigreega dawladda ayaa ka hadashay dagaalka ka socda deegaanka Tigreega iyo sidoo kale guulo hor leh oo ay ka sheegatay deegaano ay la wareegtay waxaynu sidoo kale eegaynaa hadiiba ay dhacdo dawladdu iyadoo sheegtay inay ku sisiqayso maqale in ay gacanta ku dhigto caasimada Tigreega maxaa la gudboon madaxda iyo waliba ciidamada Tigreega arimahaas ayaynu ku eegaynaa qodobkan jaamac galad falanqayaha barnaamijka ayaa ila jooga oo aan wax badan ka weydiin doonaa bal sida uu wax u socdo dagaalkuna dabcan waxa uu galay maalintii 19aad waa tahay jamcu soo dhaw dagaalku wuxuu galay maalintii 19aad waxaad moodaa qaabkii markii hore iyo intii la rabay muddo dawladda ay ku fikiraysay qorshaheedu ahaa in lagu soo gabagabeeyo in uu ka daba dheeraaday welina ma muuqato saan in lagu soo gabagabeyn doono in kastoo dawladda ay guulasho sheeganayso bal ugu horeyn maanta xagee uu wax maraya بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام يا guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadba intaas kadib elkaas horta marka la fiiriyo de meesha la joogo inagu waxaan qaadanaynaa inta badan wararka ka soo baxaya dhinaca dawladda oo hadda maxaan ku dhahdaa waxyaarihii yaryara ee aan meelaha ka ereeriyan jirnayna waxaad moodaa inay yar gabaabsi ay noqdeen oo hadda isha kaliya ee warka laga heli karaa ilaa iyo xad inay uun tahay sheegashada labada dhinac ee meesha ku loolamaya dad badan baa markaan maaragtay waxbaan sheegaynaa oo haddana waxaan dhahaynaa sida waxaan ka hadlaynaa ma aha anaga aragtidanada iyo haddaan dhahno shalay meel heblaan dawladda joognaa tii maqalan kor joognaa maqalay galaysa hadii la yiraahdo waa waxa iyaga aan ka soo xiganayna wax anagu aan maaragtay sheegayna ma aha labada dhinac iska soo horjeeda midna wuxuu ku dhihi alamata baan haysanaa oo warkiisa in la sheego de waa khasab weeyaan sababtoo ah waa dhinacyada warka sameynaya iyo qayb ka yahay dhinaca kale wuxuu dhihi maqalan galaynaa labadaas marka war aad bay u kala fog yihiin haddana labadii dhinac ee war sameeyayaasha ahaa ee iyaga warka laga soo xiganayay ayaa kala sheeganaya marka hadii marna aan maaragtay to si wax u sheegna marka kale si wax u sheegna waa labada dhinac ee iska soo horjeeda waxay kala sheegayaan waxaan anagu kala sheegayna ma aha marka inta ka soo gudbo dhinaca ugu badan hadda wararka laga helayahay waa dhinaca dawladda gaar ahaan saraakiisha maaragtay u hadla ama ka hadlaya maaragtay arrimaha dagaalka iyo hawlgalka socda marka waxay iyagu ku doodayaan hadda laba dhinac in magaalada Maqale ay kaga wajahan yihiin oo qayb iyadu de shalay bay waxay sheegtayba inay magaalada Maqale ay kulaalayaan oo kor joogaan oo maxaan ku leeyahay wax ka xigaaba aan jirin qolada kalena iyaguna waxa weeyaan waa qolada adigraad qabsatay oo maanta ay sii baxeen oo waa sii socdeen oo ciidanka halka hadda magaalada duleedkeeda jooga waxa ay sugayaan waa ciidanka soo dhaqaaqa qoladan marka duleedka magaalada joogta waa qoladii sida ay sheegeen ka dhaqaaqday ama ka baxday meesha la yiraahdo alamata ciidankii ka baxay weeyaan meel la yiraahdo muhanni wax noocaas muhanni miya wax noocaas yaan joognaa bay yiraahdeen waa marka anagi iyo maqala wax noo dhaxeeyo geedo mooyaan dad ban nooma dhaxeeyo amal qolaasi marka shalay qabsatay meesha la yiraahdo adigraad la wareegtay waa ka baxeen iyaguna oo maanta waxay yiraahdeen meel dhexe oo u dhaxaysa adigraad iyo meesha la yiraahdo Maqale yaan joognaa bay yiraahdeen oo la yiraahdo walba magac idaaga humus la yiraahdo idaaga humus waa magacyadii waxaan maran dad qalatada marka halkaas anaguna joognaa bay yiraahdeen labada ciidan marka meesha ku hardamaya qolada warkaas inta yaa laga hayaa afhayeenka marka militariga ama qaybtan hadda hawlgallada iyaga inta badan ku jiraahay oo lagu magacaabo Dajaneta Sagaaye waxa uu leeyahay Maqale waa feedqaawanta macnaha inaan qabsano يعني wixii hareeraha ka jiray oo dhan galkii baan kala soo baxnayo Maqale oo feedqaawan ba hadda soo baxday in ba hadda anaga yaana sahaynaa wuxuu marka digniino u dirayaa qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan magaalada oo qiyaastii adigu
in ka badan nus milyan qof ama milyuun qofba ku dhawaad ay ku nooshahay dadka ayagu ay taangiyada ula tageen iyo haddana wuxuu leeyahay nafihiina iyo lafihiina ilaashada oo ka fogaada meelaha dagaalku oo saameyn doono si fiican ayagii baan hadoogo diyaarada iyo taangiyo ula tagay oo maxaan ku dhahdaa guryahoodii oo nabada ما أرتي هذه رسول حلي هذا جوابها دجال يجوابها أنكو درري دون أنك إنه ما كان سهينه كفوا هذا مركا مهمة دوحيتها العموم إن عيدا كالدولة دوسيدا أي شيء جيان أي ماركتي هذا إن كوسي سقيان مقالة مقالة any time أي جل كران أما جور كستي الله بهذانا إذا الله دقائق دبابات كي أوجبنا يو تكنيك ذي يوحلا يوحي أود توبي له هيدا دمشي اللي يسوق جيو هو علوس أو حاجة رحتها ماركتي للسوق هي مقالة وأن مراها كل الوسور ردين مركا وين أركنا دي كل لكن هذا وركا وقدم بيا ديالكو وإن شجشة الدولة الدكلية عن شجنا أو إن عيدا مدي ملتري إثيوبيا هاي هاتن يجو كوسي قلقليان مقالة مقالة عاصمة مامل كتكريجا وكاسا واتاي هذا ما سنتاي طبعا دولة يدا قولي كشجنسا ديالك ملا بدنا وانقصنا هذا حنو هذا بيليهن مقالة مقالة qaabkay noqon kartaa nimankan ma laga yaabaa inay ku dhex dagaalamaan bise waxa laga yaabaa inay ka baxaan shacabna dabcan waa ku noolyahay horta Cornel Jana waxa uu sheegay in dhulkii qalafsanaa ee qaabka daraa ee dhul buureedka ahaa ee difaacyada ugu badan iyo godadka ugu badan ay ka qoteen kooxda TPLF inay ka soo gudbeen waxa hadda u hadhayna وياها مارتي وحير أو دردرة وصل يسوي هذا الكود جاي لكن وحنا وصلنا مجال مقالة نفط الكذا إنه يستنهين ميل بنانا أي محام كل هذا تو مجاله يقول له استراتيجي هو كهبون دفاع إنه يتهاي سير دراد واحد دوني بهالنقط كوحدن TPLF يجو عرها كان سوق جارة يتاجين عرها كان سوق جارة مركي اللي سوق جارنا ويسيق مثل هذا عرها بدي هذا عرها كان سوق جارة يجو هذا حيتاجين عرها كان سوق جارة مركا كل وحي حوق يحوله عدود أي هيين أو دم ماشي سوق جايين يجو بانجده هذي يورمه هذي يتانجي هذي يوحي كلا يكون دار كرام بوتها يمحن كل هذا وفيسك كسوتشرين يماشي أقربين إلا سوق جارنا ولا جاري هذا أنا هالكن سوق جاري إن الدهان وحكم معها أو أي مركلة مارد دي بس سقان مركا دجالك ماشي وقدرن إلا فيلايو إن محن كوري هذا يطلع يسكر روح بحنا أد لو ذا فيلايو وحي هرادن وحي إسكا هاين ديل بإسكا هاين ماشي وإن كارن محن كوري هذا يتو يعني أن وحول يسور ريبنين إلا ما رتقول ولا بقى إن في بحالتها ومقالة ينواحي هذا هديبا سدا لقى عبس قبائل نقوم إذا كورن oo nimankan ay shacabka u danayaan oo ay dhahan magaalada aan ka baxno waa istiraatiijiyad aad u wanaagsan waliba markii dhinaca laga fiiriyo oo waa waxyaabaha ay ku wiiqi karaan awoodda ciidanka dawladda sababtoo ah haddii ay ku dhex dagaalamaan magaalada nimankan hal dhinac baa looga adag yahay xagga cirka lagaga adag yahay xagga dhulka lagagama adka marka xagga cirka dawladuna way sheegtay taliska ciidanka cirkuna wuu sheegay yani cudud ugu badan ee nimankan wiiqaysa ee lagu wiiqahayaay waa ciidamada cirka weeyaan ciidamada cirka marka waxa way ka shaqeysan magaaladana waa la dumin dad iyo dunyana way isla baabi'i iyaguna way ku dhex dhamaani in la askari kula dirirayo ma waa diyaarad cirka ka soo duqeynaysa waxa ma aragtay to meesha ka dagaalamaya waxba u aabayeelaynin sidaas daraadeed waa xigmad baa ku jirta magaalada inay ka baxaan oo ay magaaladana badbaadiyaan bulshadeedana intii tabartooda ay badbaadiyaan kulli ma badbaadayaan iyaguna ay buuraha galaan kadibna halka ay sidoodii jabhadeen ka bilaabaan oo ay maxaan ku yiraahdaa kolba intii tabartooda ay noqoto ay tallaabsadaan taasi marka waxay sii daba dheeraynaysaa dagaalka oo waxa conform noqonaysa in maxaan ku yiraahdaa halkaas dhibaato ay ka dhacayso dawladuna aysan awood u yeelan doonin in ayna xakameynaynin laakiin haddii magaalada ay ku dhex dagaalamaan oo magaalada uu dagaalku galo oo uu saameeyo oo lagu diriro maqalana way burburaysaa shacabka way dhamaanaya iyaguna way ku dhex dhimanayaan dadka dagaalka falanqeeya qaarkood waxay qabaan oo ay leeyihiin
macnaha waxyaabaha ka suuragali kara nimankan Tigreega hadii ay noqoto maqale in loogu tago in waxa weeye ay isticmaalaan hub sunnaha oo ay dhahaan anaguba dhimanay yuusan jirin wax naga dambeeyo hubkaan uu dhibaato dalkii u keeno ma dhici kartaa inay horta ma haystaan su'aasha waxay tahay miyay haystaan haddii ay haystaan meelaha kale ku isticmaalaan maqalaba looma soo gaareen aad iyo aad intaan maqala hadii ay maqala ku dhex ridaan iyaga iyo askarta iyo dadku way isla dhiman marka waa moogtay geeridii bay soo boobsiiyeen marka waxaan u malayn maayo inay hadda malakmoodkooda soo dadajinayaan ilaa iyo xad way isku dayay in maaragtay ay ka warwareegaan marka hub ayna meel kale ku isticmaalin ilama aha hadda inay isticmaali doonaan laakiin cududooda oo dhan meesha isugu keenaan inay iyaga iyo ciidanka militariga kala food qaadaan oo isku dhamaadaan oo hal askari oo Ethiopian dib u noqonin way ku xisaabtami karaan oo meesha ay ku cunaan Soomaaliland garan laakiin aragti ah inay hub ama kiimika ama wax la mid ah ay ridaan iyaga iyo shacabkii way ku dhex jiraan waa la isla dhimanay marka ma u malaynayo hadda in durba inay dhintaan inay rabaan aragti ahaan laakiin waxay diyaar u yihiin kolleyba iyaga iyo dawladdu in maxaan ku idhaahdaayo ay meel magac leh ku soo kala hadaan marka xaqiiqiyan taa iyada anigu ma aaminsani inay hub sun iyo wax noocaas ay isticmaali karaan hubka sunta ana waa la sameyn karaa waa lagu dari karaa mar walba oo gantaalaha madaxyadooda yaa mar walba wixii la rabo yaa lagu sameeyaa oo la kordhiyaa marka waa kordhin karaan waxay rabaan bay sameyn karaan laakiin meelahaas ay ku isticmaali lahaayeen ismalihi anigu maqalay la sugayeen oo dadkoodu meesha u badnaa iyo ku baabiinayaan in kasta oo ayna dadka u badanayninba maslaxadeed ayna wadin waxna waa ciidan waxna waa nimanka madaxda waxa aadka loogu raad joogay ee dawladda fadaka ay raadinaysan waa nimanka madaxda weeye ciidanka ama jabhad nimay bilaabi karaan oo inta banaan ku baxan bay dagaal sameyn karaan ama shacabka way iska dhaxgali karaanba waliba iyagoo sii wada kara macnaha dagaalka iyagoo shacab ahaan oo gudaha wax ka wada kuwan madaxda iyaga maxaa la gudboon مسؤولية هرت الشعب iyo madax iyo ciidan ma kala laha Tigray nimanka ku duulayna waa waxa weeye waa niman raba inay laayaan soo gara marka wax qayb gooniya la gudboon iyo wax qayb gaar ah la gudboon aniga ima muuqatee isku wax baa la gudboon inay ama wada diraan oo dhintaan ama maxaan ku leeyahay inay wada qaxaan laakiin qayb soo hadha waa la dili qof kasta oo Tigray dilba ku xukuman yahay si loo dilaba ama maxaan ku leeyahay mid la yaqaan ha ahaado ama mid aan la aqoon ha ahaado dad meesha waxa socda caraysan waliba markii hadii la yiraahdo maqala waa la qabtay oo kale dad dhan baa guuri oo baaqiga dadkii ku haray maxaan ku leeyahay Gondar iyo Bahardar iyo Gojam iyo meelaha dadkii ku haray oo dhan way qaar lugeeye iyo qaar cagaf fuulaba way bixiyeen meesha aadi ugu yaraan qof wala wax dhowr qof oo Tigray ah inuu maxaan ku leeyahay uu meel ku hubsado sida daraadeed Tigraygu way wada xukuman yihiin meel ay ku kala hadhayaan ma joogto meel ay ku kala hadhi doonaan ma jirto cadaawada iyo naxliga iyo buqdiga ku jira umada oo labada dhinacna uu sii kordhayaa mid waliba sida daraadeed waxyaabahan hadallada ah ee warbaahinta la soo marinayo ayaa hadana dadka si maaragtay fogeynaya oo meel xun gaarsiinaya marka meel hadda ay ku kala hadaan Tigray iyo maxaan ku dhahay to maamul iyo madax iyo ciidan iyo shacab ma joogaan Tigray hadii kolkii dawladdu ay u maaragtay waxa kala saari lahayd oo si maaragtay cilmiyeysan inta loo wajaho la kala saari lahaa kooxda TPLF waliba kooxda TPLF na hoggaankeeda iyo maaragtay xubnaha caadiga la sii kala saari lahaa oo dadka loo tusi lahaa inay yihiin dad Ethiopian oo caadiya oo dad mujrimiin ay maaragtay wareerinayaan waxa loo jeedana ay mujrimiinta ay yihiin ee aysan ahayn maxaan ku yiraahdaa to umada meesha degan qayb kamid ah ama umada oo dhan yaani hadii qaabka loo dhigi lahaa waxba maaragtay meesha ku jiri lahaa nimankan taageeradan badan ma heleen iyo difaacan adag ee ay hadda haystaan ma ayna heleen laakiin waxa dhan bal isku kiciyay Tigray dilba ku xukuman yahay baa la yiri waa mujrimiin baa la yiri waa dambiilayaal baa la yiri qof kasta oo Tigray waa wuxuu noqday bartilmaameed buu noqday tusaale waxa dadka ugu filan Tigrayga joogay deegaamada kale gaar ahaan magaalada Addis Ababa caasimada dalka Itoobiya ya dadka tusaale ugu filan qof Tigray ah oo maxaan ku yiraahdaa maanta magaalada Addis Ababa intuu dhex mara gurigiisa maartay ku noqonayaa ma jiro cabsi iyo walaac iyo walbahaar bay qabaan taasa marka waxay meesha ka saaraysaa in loo jeedo dad gaar ah oo bulshada Tigray ku dhex jira ee waxa hadda muuqanaysa bartilmaameedku inuu yahay si guud ah waa hagaag ugu dambeyn haddaan eegno sida uu socdo marka aan fiirino haddaan
tusaale ahaan dhahno dowladdu in ay qabsato maqale ama guud ahaan deegaanka Tigreega ay la wareegto ma laga yaabaa in deegaankaasi ay nabadgelyo ka dhacdo oo waxa weeye colaadisa ay ku soo afjaraan lagama yaabana Ethiopia jidkii wadadii waxay qaaday hoog iyo halaag ay qaaday albaabadii qiyaamaha maartay yaa ku furmay hadda maalinka kooxdaasi ay awood beesho way kala firdhayaan xilligaas waxay bilaabayaan wixii maartay dhibaato ahaa ee ay sameyn lahaayeen oo gaari magaalo u gudubtay iyo gaari maartay ka hor yimaada aan la heli doonin Ethiopia inteedii kalena iyadana sidoo kale way shidmaysaa oo haddayba maartay wax hadda u harsanba ma jiraan oo waan la baahinaynin oo waan la soo tabinaynin mooyaane Ethiopia bar walba albaabadii naarta ku furan Soomaaliya garan waxay ka socotaa maxaan ku dhahay oromada dhexdeeda ka socotaa waxay ka socotaa Benishanguul Gumus bay ka socotaa Gambela isku dhaxyaacsan maxaan ku dhahdaa Addis Ababa maalin walba la isku dhaxriyanayaa oo hubku maxaan ku dhahdaa u galaya sidii aan maaragtay yaanyadii oo kale iyo hubku u galaya baabuurtii yaanyada qaadaysay hadda hub geynaysa Addis Ababa maalin walba deegaanka Axmaarada walaaqan meel maxaan ku dhahdaa Ethiopia oo bad qabtaa ma jirto hadda dadku waxay aad u sii dhowrayaan oo wax badan maaragtay ay ku yar xadidan yihiin rabshada ka socota deegaanka Tigreega maalinkii lagu kala food qaado maaragtay meesha Tigreega lagu kala food qaado ee TPLF dhan una ay u dhacday buuraha ay fuusho maalinkaas Ethiopia waxa weeyaan meel walba waxba ka bilaaban sababtoo ah Axmaaro intii hadda dagaalkan ay ku jirtay maxaan ku ilaahay dadka Ethiopia way arkeen waxa ka soo socda yaa la ogaaday Soomaaliya garan cid marka sugaysa oo u sii fadhiyaysa oo aan ka ahayn ma way jirtaa waa Soomaalidu way sugaysaa waxay maartay kaga yimaada oo Soomaalidu waa sugo talo maxaa la ku sameyn doonaa mooyaane aqli kale iyo aragti kale midna ma laha laakiin dadkan kale ee nool ee caadiga ah waxa weeyaan mar rabaan Axmaaro inta ku sii dhex jirto in kuwii maartay soo guuleystay oo dharaabuqahayo baangada wata ay ugu yimaadaan mar rabaan inta sii joogto intay soo caydiyaan inay halkaas hadhow isaga hor istaagaan kii la soo eriyay iyo kii meelaha ka yimidba yay rabaan sababta hadda marka meelo badan dagaaladu ay uga dhacayaan sababta deegaamada kala duwan ee maxaan ku leeyahay Ethiopia loogu ugaarsanayo Axmaarada waxa weeyaan kuwa halka jooga markii ay soo noqdaan ay soo rogmadaan Tigreeg laga soo food qaado waxa weeyaan dadkan kale ku soo noqon Axmaaraduna way xushan tahay Ethiopia way ku dhex jirtaa magaalo walba marka waxay isku dayeen inay rabshad iyo dhibaato ay ka abuuraan sida daraadeed qolo sii sugaysaa ma jirtee iyadoo walaaqan oo gubanaysa oo la kala cabsanayo yey taas soo dhamaan markay taas soo dhamaatana si caadi ah qaar kale isu gelin lama kala joogayo ciidankuna ma xadidi karo mana xakameyn karo mar hadii bulshada caadiga ah ay iyadu is colaysato oo iyagu ay isu jeedaan ciidanku goob magaalada dhexdeeda ah oo kasta ma joogo banaanka iyo tuulo station gaar ah ciidanku joogan markay wax dhacaan bay soo baxaan marka hadda waxa weey waa shacabkii waxa is eriyanaya shacabkii way waxa culoobay albaabada la isugu galaya guryaha la isugu galaya markii waxaad maqlay reer nabad xalay ku seexday oo aan qof ka soo bixin taasina waxa weeyaan waa burburka iyo baaba Ethiopia mid maaragtay soo dadajinaysa inkastoo hadda anigu aan aaminsanahay wax u harayba oo qaable inuuna jirin oo qolof mooyaane maxaan ku dhahay qolofta guud bay dadku Ethiopia u yaqaanaan waqti laakiin waxa gudaha ka socdaahay ma aha wax caadi iyo wax la dheersan kara midna marka deegaanka Tigreega maalinkii lagu soo kala food qaado wax badan ba Ethiopia ka soo kordhay wax badan oo hadda maartay aan la saadaalinaynin ya banaanka iyagu iskeen aad ma santahay waa hagaag daawadayaal qodobkan aan uga hadlayn wararkii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia gaar ahaan dagaalka iyo goobaha uu ka socdo iyo Tigreega waxyaabaha la gudboon iyo waxyaabaha ka dhalan kara intaas ayaan ku soo gabagabeynaa tan iyo intaan dib u kulmi doono haddii ay bahawada ogolaado waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo